toddobaadkan barnaamijka Soomaalida maantay oo aad arbaco walba ka dalacataan bogga Kid Media waxaanu ku eegi doonaa dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka jira magaalada Muqdisho oo dad badan ay rumaysan yihiin in dhibaato darxumo diif iyo dagaalo ay diloodeen taa beddelkeedna aanu jirin wax horumar ah haba yaraatee laakiin daawada xusuuso in Muqdisho ay ka jiraan horumar sida waxbarasho adeegyo caafimaad iyo waliba ganacsi intuba suuqyada ayaad ku arkaysaa dad ku jira ganacsiyo kala duwan kuwa oo dadaal ugu jira maareynta nolosha qoysaskooda waxaana xilliyada qaar dhici karta in ganacsiga uu kala dhantaalan ku yimaada sabab la xiriirta dagaalada iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira Muqdisho dadka hawsha ganacsi iyo xirfadaha kala duwan ku shaqeysta ayaa aragtiyo isweydaaran waxa ay ka muujiyeen qaab howleedkooda waxaana qaarkood ay noo sheegeen inaanay howl qura qaban balse mar walba ay sameeyaan tallaabo walba oo ay isleeyihiin waxaa lagu horumarin karaa nolosha qoysaska Yuusuf Gaduudow waa ninkan aad arkaysaan ee ku jira sandaqada cawshada ka samaysan ana sandaqadiisu ay ku taalaa suuqa Buulaxubay Yuusuf waxa uu iibiyaa waxyaabaha ay dumarka isku qurxiyaan isagoona xilliyada qaar ku xamaasha gaari gacmeed si nolosha caruurtiisa oo u maareeyo magaca waa Yuusuf Xasan Talaaso Yuusuf maxaa wataadi qorniyo xoolahan iyo qashqashinkan ana meeshan ku ayna alaabtaanaytaniyo habla amana ka gadgadna balniyo andiyo isku maalan ma qatliin kuna aradina waxyaabaha gad maxaa kamid ah qorniyo waxaa kamid ah barfuunadana kamid ah waxa goolbara ilmaha kamid ah adiga waxaa kamid ah ilaakum muraadooyinkana kamid ah qolfa saabuunada kamid ah shiratooyinka waxaa kamid ah shalooyinka kamid ah ilaahay kuma sadana huridkan aga ismarnay qusaha iyo wax walbo adiga aan hayna dadka walaal macaamil waxa kamid ah inuu habeenka leeyo maana nin agtay ma imaado saaxib maxay iibsadaan marka badan gabdhaha badan waxay iibsadaan huridka oo kale aad u jeceliin ee wajiga ay marsanayaan qaab ciinka wada macaamishan wallahi bilaniyo mar bas hadii gabdhii hadii arkaa nin dhan macna bashash aan iska dhigaa waa gartay mise sana hawshan haysay warniyo hawshan waxaan hayay bishii la toddobadeedaan bilaawday 2007 aan bilaaway ila intan oo soo harbinay waa markii hore hilibleey aan ahay jir ma ka heshaa nolol kugu filan mar warniyo mar gaar gacna iskiga kharaabta mar inta iskiga joogo adiga wax la soo koobo karama cid ku mudmuda alxamdulillah marka wax walbana raxmad ilaahay waa Abdullaahi Sandheere waa nin ku shaqeysta xarqaanka ama dawaarka waxaanu inta badan talaa dharka dumarka iyo kan kale ee la dayactirayo waxaana uu ku shaqeystaa gidaarka guri ay cid leedahay waxaana uu awoodi kari waayay Abdullaahi inuu ku helisto goob uu ku shaqeysto waxaana hawshiisa ay halkad gashaa xilliyada roobka maadaama sida idiin muuqato uu fadhiyo banaan cidla ah Kid Media ay uga sheekeeyay qaabka hawshiisa isaga oo ku guda jira hawl maalmeedkiisa caadiga ah wallahi kuwa aad u fiican waa jiraan oo macnaha dadkan oo danyarta أو مرمر يجي مثلاً كوبا معنا أو حاجة دقالة علينا عقولين معنا قف جاجح طلع آياتها معنا ما بيجي تليست وحن كيسنا هرقامن كقالي كان كيسنا أنا إنه حاير هذا الدربي واحد مطلع فرسما يا واحد شيء بل واكو موجنا مرمرنا مت أذي كان أو شقدي إذا كهش أياجرا أو أدي يترى والله بالله شقدي أنا بتقانا محب بنان كان كفريسي ظروف أيها يجي سنة ليه وايو دتك بع دقالة عليه وايو دلا قرب كقبته وحباي سمستان لكن هذيك هذا هي سن قف معنا كو عابيو انتو حيكون قسبيسا سيدي مركز او نولشاد ku maareen kartina aad sameys maxaa tashaan waxyaabaha aad maxaa kamid ah wallahi jajaxa iyo waxsaas iyo aanto la runtu markaan ku sheego waayo dad adeer macna dhaqaale oo saas oo leey keeno maanta ma jiro marmar ayaa qandaraas ii soo boodo saas ay taan nolosheedu macna ma kaafiso waayo 8 ciyaal ayay igu xiriirto oo hooyadooda aan kala tagnay saas ay taan mana guursan kari ilmihiina noloshooda ma maareen kari waayo harqaankan ayaa wax walba aan ku sameystaa harqaankan wax walba aad ku sameysad maalintii hadaa heshid badi 40,000 ayaa heshaa 40,000 ma kira ka dhibtaa oo $20 oo bishii ku jirtid ma ilmihiina wax siisaa ma noloshaada ku maareysaa ma duna ku iibsataa waxa sameeyaan garan waayay marka sidaas la ajigeedo waa aad iyo aad taariikh nololeed waay kulli bakaaran abaar muddo aan ku shaqeysanaay muddo bakaar markaan ku shaqeysanaay madaafiicdii aan markaan waad ka sii waayay sidaas la ajigeedo waa ka soo cararay
meeshaan sidaan ku fadhiyaa marka laga soo tago dukaamada iyo waxyaabaha kale waxaa jira in dadka ay ku shaqaystaan farsamooyin kala duwan halkan waa goob lagu iibiyo qalabka stationeryga ee kala duwan waxaa ka shaqeeya dad iyagu howlo kala duwan qabta ninkan aad arkaysaan waxa uu ku shaqeeyaa fotokobiga ka ay inta badan la macaamilaan ardayda dugsiyada iyo jaamacadaha magaalada Muqdisho wax ka barta caruurta baalashlaha ah waa kuwa iyana qayb ka ah dhaqdhaqaaq ganacsi ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana dharaar walba iyo galabnimadeeda ay ku howlan yihiin caruurta sidii ay u kasbi lahaayeen qutulyoonka ay naftooda u baahan tahay isgoosyada iyo goobaha ay dadka isugu yimaadaan ayaa lagu arkaa caruurtan walow xilliyada qaar caqabado ay wajahaan Muqdisho si la mid ah dunida ayay ula jaan qaadaa xilliyada qaarkood tiknoolajiyada iyo waliba adeegsiga waxyaabaha dunida ku soo kordha waxaana ku yaala goobo lagu iibiyo kombiyuutarada iyo qalabka kala duwan ee elektarooniga ah waxaadna marka aad xooraansato aad arkaysaa in ay jiraan horumar iyo la socod wanaagsan oo ay bulshada Soomaaliyeed u leedahay arrimaha tiknoolajiyada ee dunida ku soo kordhaya sameynta kombiyuutarada ciladoobay iyo waliba iibinta software-rada kala duwan ee caalamka laga isticmaalo ayaa laga helaa magaalada Muqdisho kaliya ma ahan inta aad aragtaan dhaqdhaqaaq ganacsi ee ka jira magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan in magaalada uu ka jiro dhaqdhaqaaq kan ka ballaaran kana baaxad weyn iyadoona boqolkiiba 40 dadka ku nool magaalada Muqdisho ay u kala dareeraan subaxii shaqooyin sida ay doonaan baha ahaadeen dadka shaqeeya gudaha magaalada Muqdisho marka la qiimeeyo waxaa lagu sheegaa 40% in ka badan walow kuwa aan shaqeyn ay yihiin cadad intaasi ka sii badan laakiin waxa u dhaxeeya cilaaqaad ah in ay nolosha wadaagaan كيد ميديا فلسفة iyo ujeedada ka dambeysay sameynta barnaamijkan lagu milicsanayo muuqaalka ganacsi ee Muqdisho ayaa ahaa in dadka loo muujiyo Muqdisho kaliya inaanu ka jirin dagaalo iyo dhibaatooyin taabadalkeedna laga helayo talaabooyin horumarka la xiriira daawade sideed u aragsan tahay ganacsigan kala duwan ee ka socda magaalada Muqdisho iyadoo dadkii ay dhimanayaan barakacayaan isla markaana dhibaatooyinku ay yihiin kuwa aad u badan oo mar walba waji cusub leh